الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحان كبري كلن كان ينكدي وكلن بركيسا ألنا سبحانه وتعالى نحاريستي سو كسو دجيه. وعن إلهي سبحانه وتعالى كبري إنه عربك قلبي وكسو وكلمة حقه. ألنا سبحانه وتعالى qalbigiina iyo dhagihiina waa u furo, nagala dhigo kuwa hadalka dhagaysta kiisa wanaagsanna raaca. alladhiina yastami'uuna alqawla fayattabi'uuna ahsana ulaa'ika alladhiina hadaahum Allah wa ulaa'ika hum ulul albaab. kelimada walaalayaal mawduucan uu ku saabsan yahay waxa weeye sidaad maqasheen qurba jooga iyo in lala fariisto ama wax laga yiraahdo jalsa ama nasaaix. waxay wagaado ku magacaabeen jalsa maca al-muqtarib, fadhi lala fariisto qofka qurba jooga ama hadal ama wada hadal. marka waxaan rajaynayaa mawduuceena inay xiriir weyn la leedahay shirka oo ah dadka muslimiinta iyo siday ugu nool yihiin dalalka qurbaha iyo dhibaatooyinkooda, mushkilaadkooda, arrimaha khuseeya sida looga gudbi karo. sideedaba qurbuhu waxa weeye nooc ay ku jirto arrin adag oo ciqaab oo kale taa. dadka marka dhulkooda laga saaro oo ay ka baxaan ama ay ku khasbanaadaan inay dhulkooda ka baxaan waa arrin dhib ah weeye. qofku meeshuu ku dhashay uu ku noolaa, noloshiisa ahayd, qaraabadiisii joogtay, saldhiggiisa ahaa, inuu ka salkaco oo ka hijroodo, ka qurbo kaco waa arrin adag oo nafta ku adag. walidaalika ayay hijradu waxay ahayd arrin adag oo culus oo janno la isku siinayo qofku inuu dhulkiisii ka soo hijroodo dhulkii muslimiinta yimaado, hantidiisii iyo dadkii iyo qaraabadii iyo wixii dhan uu ka soo kaco. sideedana qur'aanka kariimka ah haddaynu eegno dadka dhulkooda laga bixiyo waa arrin ciqaab cuquubo ah oo dhib badan. ilaahi subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil markuu amray wuxuu yidhi waid akhadnaa miihaaqakum laa tasfikuuna dimaa'akum walaa tukhrijuuna anfusakum min diyaarikum. hana isdilina oo dhiiggiinna ha daadinina, dhulkiinnana ha iska saarinina. kadibna arrimihii bay sameeyeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku canaantay, ku ceebeeyey oo inaad qaarkiin dhulkoodii ka saaraysaan, qaarkoodna dilaysaan ayuu alla subxaanahu wa tacaala ku ceebeeyey. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ذنبي أدب أذكر صاريسان. الله سبحانه وتعالى وحليه ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إلى أمر لها isdila
ama dhulkiina ka baxa in yar mooyaane ma yeeli lahayn. dhulku marka waa wax qofku jecel yahay, dhulkiisa uu ku dhashay, uu ku noolaaday, ku tarbiyoobay, ilaahay subxaanahu wa tacaala ku irsaaqay, uu jecel yahay, waa meeshuu ku soo dhacay. walidaalika ayaa la yidhaahdaa masqatu ra'sihi cala tucda, qofka madaxiisa meeshuu ku soo dhacay markay hooyadiis ay dhashay, meeshii ugu horraysay uu dhulka ka taabtay. yacni wey meeshaas waxay ku leedahay qalbigiisa iyo noloshiisa si gaar ah bay saamayn ugu leedahay. marka qurbaha saasuu horta u dhib badan yahay. maxaa keena dadku inay dhulkoodii ka baxaan? asbaabta kow aynu ka hadalno, cuquubadaasu waxay ku timaadaa dadka dhulkoodii in laga bixiyo oo laga saaro, xoog inay uga baxaan ama dan uga baxaan. maxaa yeelay qurbaha aaditaankiisu waa labo: غربة قصرية وغربة اختيارية. غربة قفكو خصب كل نقطة، مرة من إنه قربة آدو، مرة من إنه دولال كلا قلا، لكن دنباكو كلفتي خصب بكويم. دول كيسي بالغ صاري أما وكبحي وجوي كريواي أما الآن أما نبت قليا الآن أما نول الآن أما ضد كلا كساري وقصرية وخصب كازو دول كيسي لغا سو بركي وكو خصبان هذا مركا دول كالاتو iyo qurbo inuu ku noolaa. midna waa ikhtiyaari oo waa doorasho oo isaga dhulkiisiyo nabada ayuu isagu ka soo baxay oo qurbaha doortay. marka asbaabaha ugu waaweyn waxa weeye kow in ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dhulka looga barakaco in cuquubo ay ku timaado dadkaas, oo waxaa keena ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa oo ay ka tagaan, sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ay ka tagaan al-i'raad can illaah. taasna wuxuu ku sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadihii hore oo dhulkooda laga barakiciyey, la kala qaybiyey, adduunka lagu kala daadiyey, inay sabab u ahayd inay ka jeesteen sharcigii ilaahay iyo diintii ilaahay. waxaa ka mid ah qowmu saba markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hadlayey, wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala: laqad kaana lisaba'in fii maskanihim, deegaankoodii, aayatun jannataani can yamiinin wa shimaal kuluu min risqi rabbikum washkuruu lahu baldatun طayibatun warabbun ghafuur faacraduu way ka jeesteen, way diisteen. waxaa la yidhi dhulkan ilaahay idin dejiyey ee quruxda badan ee jannooyinka ah ee arsaaqda badan, cuna risiqa ilaahay tartiib iyo nabadgelyo ku cuna, ilaahayna subxaanahu wa tacaala ku caabuda oo ugu mahad celiye. way diideen, waa laga qaaday. marka risiqiina waa laga qaaday iyo nicmadii, nabadgelyadiina waa laga qaaday. kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkoo dhan buu gabalgabal ugu kala tuuray. suu yidhi alla subxaanahu wa tacaala: fajacalnaahum axaadiiثa wamazaqnaahum kula mumazaq ina fii dalika laaayaatin likulli sabaarin shakuur. waxaan ka dhignay dadku waxay ku sheekaystaan oo tusaale u soo qaataan baan ka dhignay buu yidhi. dadkii nicmada u deganaa waxaa laga dhigay dadku waxay tusaale u soo qaataan. fajacalnaahum axaadiiثa, dadku ku sheekaystaan. wamazaqnaahum kula mumazaq. waxaad moodaa ayaddaas ummado badan inay taabanayso oo ay u eg tahay xataa innaga inay ina taabanayso. soomaali ahaan axaadiis baynu noqonnay, dadku waxay ku sheekaystaan. qolo walba waxaa la odhanayaa sidii soomaaliya oo kaleeto, assawmala bay carabtu u bixiyeen. waa la soomaaliyaynayaa
يمن سيدا صوماليا، ليبيا سيدا صوماليا ربطين نقطة، العراق سيدا صوماليا ربطين نقطة، سوريا سيدا صوماليا ربطين نقطة، مقولوا باللي وكفلا وحديث وحي نقولين ضدكو وحي كتو صالقاتان وحي كوشا كيستان ومزقناهم كل ممزق وانا قبل بانوكو ينيبوا لي إلهي سبحانه نما قاسوا آية نما كيمن الدون كمير آني تجن مجرتا لي تاريخ دهور وذوقته إلى أفريقيا كدعان أوروبا كدعان حدود هذا مهل والبه بالغة توري بقايا قودي لنعول بيقاري وحكى لك أنا سببها نعمة أولو كفريو نعمة أولو كفريو شرع إلهي لقد جست جودهان هذانا لكن نعموين كإلهي سيه لبا نعمان أبوين لبا نعم الدون كان كركيسة ضد كان ولشيسو لبا أرهم بكتاجنته إلهي سبحانه وتعالى قرآن قتل معه ومد كستهان نقطة قال يا مسلم لبا داس بين ولش بني آدم كل سنتاه مدة كواد وأنا بتقليو مدة لبادنا ونولشة سير الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وحويه إلهي وحطو صالو يدوك سوقاضي أمد إلهي سبحانه وتعالى ميل دقن قرية دقن أو هيستن بتقليو أو مطمئن أهو دقن وحصلون مينانك waxaa qofka inaanu biqi hayno cabsanayno walwal ku jirin iyo walbahaar aanu ku jirin xagee baad mari doontaa jidka hadaad marto ama wax lagu yeelayaa aanay ku jirin mutma'in wa qalbigiisu waa degan yahay nabadgeliyuna ku jira aaminatan mutma'inna رزق سينا سهلا بقياب يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله نعمة أسبيكو كفر ضي ويدي دي ويعني ويدي نلشينا ترتيب نبتقلينا ويهين ويدي إلهي ويقول شكرين ويدي محالة سمي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لبدي وحلقوا بدلي لبا بدل كودا هو كسهر جيده ماشي نبتقليدا iyo deganaantii xasiloonida waxa loogu bedelay khoof cabsi baa loo marka waxaan garanaynaa arrinkan inuu keeno ilaahay subxaanahu wa ta'aala ba keenay cabsida iyo nabadgeliyada labada isaga bixiya nicmadan iyo gaajadana ilaahay subxaanahu wa ta'aala maamulkiisa ku imaanaysa iyo qadartiisa فأذاقها الله لباس الجوع قاجو ومحيها أول يأتيها رزقها رغدا من كل مكان حالة دي بقى اسبدش وإسلا ماشي وإسلا قوبتي الرزق السهل كأهل لقاه إليه وسترتي وحلو عني أيها وحلو عنو لقلايه قاجها الله قول انت الله عبسنا إلهي سبحانه وتعالى وأقول بسي عبسنا مركا لقول لبسه ويكون السيحان ويكون هرقلي ويكون الجوكتا مالك استوات قشو ويكون السيحان سنة كاقا مغانا ساسوي لبسك لقول قلي gurigaaga hadaa joogto jidka hadaa marayso meel kale hadaa aado banaanka ah way kula socotaa cabsidi waa ku labisan tahay waa cuquubo marka arrinkaasna uu keenaa dulmigu waa keenaa dulmigu cuquubu keenaa dadkuna marka dhulkooda inay ka kala qaxaan oo ka kala cararaan waxa kale oo keenta معاصي بدن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا رزقي إلا وايو بكينيسا نبتقل يدي إلا وايو يدقنانتي بكينيسا لعررو دول كودينو أبار نقضو تصحر